tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika ayaa soo gaaray heer gabagabo maadaama ay laba xul qaran ah ay isugu imaadeen barnaamijka tartankan. haddaba wadamada Senegal iyo Algeria ayaa isugu imaaday kama dambaysta tartankan xiisaha badan leh ee qaramada qaaradda Afrika. ciyaartan xiisaha badan leh waxaa la daawan doonaa habeenimada Jimcaha ay sii baxayso, Sabtina ay soo galayso, saacaduna ay tahay 10 habeenimo ama 4 saac. magacayga waxa waay Idla Dacso Ibrahim waxa ciyaari doono Algeria iyo Senegal. aniga run ahaantii waxaan taageeraa Senegal. insha Allah taala waxaan rajaynayaa inay ku badan doonto Senegal 2-1. sidoo kale waxaa Senegal u doortay waxa kamid ah Sadio Mane macnaha qarankaas u dheelo. sidoo kale aniga Sadio Mane wuxuu ciyaaraa sidoo kale Liverpool qaranka, marka aad iyo aad u taageeraa ninkaas ciyaartiisa. waxaan u rajaynayaa insha Allah taala guul wacan. waxay ku dhamaan kartaa 2-1 sidaan dhahay, sidaan hore u sheegay. waxaa ku badan doona insha Allah Senegal. saas rajaynaa insha Allah duleeyra. magacayga waxa la Liibaan Cabdi Xuseen, waxa taageeraa kooxda Algeria. waxaan u rajaynayaa guul u rajaynayaa koobkina qaadayda u rajaynayaa. wuxuu ku dhamaanay 3-1 Algeria ku badinayso. magacaygu waa Maxamed Maxamuud Cabdi. haddaan saadaalo Goal FM waa maasantiin. haddaan saadaalo kulankan finalka African Cup of Federation Senegal iyo Algeria u dhaxeeyo, aniga ahaan waxaa saadaalinta siin lahaa xulka Senegal. waliba waxaan dhihi lahaa waxaa goolka guushu dhalin doono ninka lagu magacaabo Sadio Mane. Bismillahirrahmanirrahiim. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Axmed, kana mid ah bahda isboortiga qaasatan qaybta caafimaadka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. haddaan isku dayo koobka Afrika finalkiisa isku imaadeen Senegal iyo Algeria, waxaan u saadaalinayaa koobka inuu qaado kooxda wadanka Senegal. aniga taageero waxaan u ahay wadanka Senegal maadaama aan Liverpool taageeray. Sadio Mane ayaan qaasatan taageero u ahay. hasdarteed koobka u rajaynayaa inay ku guuleysato wadanka Senegal.